Kulanti wacan daawade ku soo dhawow qaybtii 85aad ee taxanaha hawlgalka gudaha. Qaybtii 84aad ama xalqadii 84aad waxay ku dhamaatay ayadoo Serbi la gaaday misana madaxa lagu dhuftay oo marti uu madaxa ku dhuftay. Kadibna marti intuu xirxiro ayuu gaarigiisii ku soo ridan doonaa ninkii Serbi ahay. Si toos ah ayuuna dhankii Jalaal oo la soo aadi doonaa. Dhanka kaleeto Qudrad oo la badbaadiyay iyadana waan aragnay. Haddaba xalqada 85aad isla meeshaas ayay ka bilaaban doontaa. Marti intuu wadada ku soo jiro Serbi wuu soo naaxi doonaa ama wuu soo kici doonaa mise wuxuuba arkayaa isagoo gacmihii ka xirxiran gaarina ku dhex jiro. Haddaba marti gaariga ayuu wadaa gacantiisa kalena biskoolada ayuu Serbi kaga hayaa oo wuxuu leeyahay dad dhaqdhaqaaqa iyo khiyaano yar muujisid xabad ayaan kugu dhufanayaa Serbiyow. Serbi ayaa isku dayay inuu maskaxda ka bedelo marti. Wuxuu leeyahay martiyow fursad ayaad haysataa. Taliye Yuusuf waan la hadli karnaa. Sidoo kale tana ciidankaadii waa lagu soo celin karaa iyo darajooyinkaadii wax walba. Ninkan Jalaal ah shaqadiisa iska dhaaf. Marti ayaa xoogaa rajo ah galayso. Wuxuu kaloo Serbi dhihi doonaa waad aragtay maama Faysuun markaan hadday gaariga ku soo jirnay oo markaan maama Faysuun soo badbaadinayna hadallada ay kugu lahayd. Ilaa markay maama Faysuun soo badbaadiyeen intay wadada ku soo jireen gaariga dhexdiisii hadallo fiican ayaa dhex maray. Maama Faysuun ayaa marti ku dhihi doonto martiyo waan aamini lahay inaad isoo badbaadisay. Ay weli fursad ayaad haysataa maad soo laabatid ma wadada saxda ku soo noqotid. Waxaad u muuqato qof wadada saxda ku soo dhici rabo. Wadadan qaldan iyo Jalaal maad ka soo noqotid martiyo sidaas ay dhihi doontaa maama Faysuun. Laakiin marti uu diidi doonaa oo wuxuu dhihi doonaa anigoo nin xun ayaan ahay wadada xunna sidan u qaado way. Sidoo kale tana Serbi wuxuu dhihi doonaa hooy ninkan waxba isku marjinin kaliya wuxuu garabka iisii waa adiga dartaada. Laakiin si wadada uu ku taagan yahay inuu ka soo noqdo marnaba macquul maahan. Ay hasdaalinin ayuu dhihi doonaa. Haddaba Serbi iyo marti gaariga ay soo saaran yihiin marka xusuustii way dhamaatay iyo dhankaas aan kasoo sheekeynaynay. Serbi wuxuu isku dayay inuu marti waaniyo wadada saxda ahna ku soo rido. Laakiin marti wuxuu dhihi doonaa Serbiyo waxba isku dayin inaad maskaxdayda bedeshid. Anigana ma qayaani karo Aaba Jalaal oo aabahaygu isoo koriyay marnaba ma qayaani karo. Hadduu qof kale ahaan lahaa waa macquul inaan hadalkaada maqlo misna wadada saxda soo qaado. Laakiinse way igu adagtahay inaan hadeer wadada saxda ku soo dhaco misna Aaba Jalaal aan ka soo horjeesto. Calacalkan iyo sheekooyinkan aad igu wado iga jooji ayuu dhihi doonaa. Serbi mar walba ma joojin doono sheekada ayuu ku wadi doonaa oo wuxuu leeyahay Taliye Yuusuf ayaan u wada tagno. Askarnimadada waan lagu soo celinaa aniga ku dhameynayo. Sidoo kale tana qoys waad haysataa maxaa Jalaal kaga baahan tahay. Maama Faysuun oo ku jecel ayaad haysataa. Aylam ayaad haysataa. Qoys dhan ayaad haysataa. Aniga adigana saaxiib ayaan noqonaynaa isla shaqaynaynaa. Askarigaadana ku soo noqo. Martiyo hadalkayga maqal ayuu dhihi doonaa. Serbi ku celcelin doonaa hadalkaas. Laakiin marti wax dhig jalaq ah uma siin doono. Go'aankiisa ayuu ku adkeysan doonaa. Muuqaalka xiga waxaana la tusayaa Qudrad oo la soo badbaadiyay. Qudrad isagaba markii hore isbadbaadiyay sababtoo ah ninkii ilaalinayay ayuu dilay. Intuu sheeko been ah uga sheekeynayay ayuu ninkii gaaditaan ku sameeyay wuuna dilay. Haddaba ninkii dhaban casahay iyo ciidankiisii oo wada socda markay meeshii tagaan waxay arki doonaan Qudrad oo nimankii meesha mid u dilay kaligiisna meeshii joogo. Meeshii ayay ka soo wadi doonaan. Dhaban cas wuxuu Qudrad u sheegi doonaa inuu lacagtiisii qaatay isaga. Wuxuu dhihi doonaa walaal Qudradow markaad meeshii qolkii igu xirtay qolkii waan ka soo baxay. Lacag badan ayaana arkay lacagtaadii aniga ku hayay oo soo qaatay qaarna waan ka isticmaalay sidaas ogow. Qudrad wuxuu dhihi doonaa hadda kadibna hayso adiga iskale lacagtaas. Wax dhib ah male haddii aad qaadatay ayuu dhihi doonaa aniga muhiimkayga lacag ma ahan. Muhiimkaygii ujeedkayga waad ogtahay dhaban cas oo sidaas ayuu dhihi doonaa. Saddexdoodiina iyo macal dhaban cas iyo Qudrad iyo ciidankii dhammaan meesha ay iska soo raaci doonaan. Gurigii ayay soo aadi doonaan. Ileen Qudrad wuxuu doonayaa inuu Jalaal dhibaateeyo kana aargoosto. Muuqaalka xiga waxaana la tusi doonaa Aylam Barish Imam Faysuun oo gaari soo saaran. Aylam ayaana gaariga wado.
waxay ka walwalsan yihiin halka uu Serbi aaday martiina uu raacay. Waxay leedahay marti liskuma haleyn kara iyo Serbi halaan oo dhan muxuu la maqan yahay. Maxay tahay labadooda howsha ay wadaagayaan ay isku raaceen. Ileen markuu marti Serbi soo wadanayay waa laga qariyay Serbi halka uu socdo oo wuxuu yiri qoyskada soo mac salaamay Serbiyow. Aaba Jalaal ayaan ku wadaa biskoolu hoos kaga hayay. Haddaba way walwali doontaa maamada laakiinse Aylam ayaa dejin doonta oo dhihi doonto Serbi walaalkii Serbi uu imaan doona nabad ayuuna ku imaan doonaa eed isdeji waxba ha walwalin. Gurigii ayayna si toos ah u soo aadi doonaan. Muuqaalka xiga waxaana la tusayaa xilli habeenimo ah ayaa la gaaray. Ninkii Serbi ahay waa la soo waday isagoo gacmaha ka xirxiran. Waxaa loo keeni doonaa Jalaal. Markii gaariga laga soo dejiyay waxay kulmi doonaan Minik oo ah ciidanka Jalaal ninkii ugu dheeray. Minik iyo Serbi dood ayaa dhex mari doonto. Minik wuxuu dhihi doonaa walaal Serbiyo maxaa sidan noogu qiyantay. Adigan kugu jeclaa dadka waadna qiyantay ayuu dhihi doonaa. Serbina wuxuu dhihi doonaa wax qiyaano ah ma jiraan Minigow iyo howshiidan watay. Haddaba marti ay dhex gali doono dhihi doono Minigow ninkan wuu dood badan yahay garbaha qaba ee Aaba Jalaal ogey. Inta la soo wado Serbi ayaa qol mugdi ah la keeni doonaa waana gurigii qadiimiga ahaa ee loogu talagalay in Serbi lagu dilo. Jalaal iyo Daa'uud iyo ciidankii kale ayaan halkaasi joogaan. Haddaba ugu dambeyn waxaa kulmi doonaan Serbi iyo Jalaal. Halkaas ayna dood dheer ku dhex mari doontaa labadoodii oo dhinac walba ay ka hadli doonaan. Jalaal wuxuu la hadli doonaa ciidanka oo dhan wuxuu leeyahay banaanka u baxa. Anigii Serbi ayaa wada hadleyno. Xataa marti iyo Daa'uud banaanka u baxa ayuu leeyahay. Minig kaliya ayaa ila joogay oo ninka iga ilaalinayo gacmahana qabanayo. Haddaba Minig bes ayaa la jooga waana ninkii dheeraay. Jalaal ayaa dhihi doona Serbiyo maxaad sidan oo dhan iigu qiyantay. Gurigayga ayaad joogtay. Wax baad ka cunaysay. Aaba Jalaal ayaad idhihisay. Intaanoo dhan ayaad ila jirtay. Howl walba ayaad ila qabanaysay. Wuxuu yahay wajigan labaad aad soo yeelatay. Maxaa kugu kalifay inaad askari noqoto oo askari isku beddesho. Jalaal wuxuu u maleeyaa in Serbi goordhow askari noqday. Haddaba Serbi ayaa dhihi doona sheekada min bilow ilaa dhammaad askari ayaan ahaa Jalaalow. Hadafkayga ugu weynaana wuxuu ahaa inaan ku xiro. Waana ku xiri doona haddii aan naf qabo. Haddii samaanta aan dhinto dadka iga dambeeya ayaa ku xiri doonaan. Sidoo kale Serbi wuxuu qarxin doonaa sirtii weyneed ee ahayd in Jalaal uu afduubtay Cumud. Wuxuu leeyahay walaalkii Cumud inaad adiga afduubatay waan ogahay. Jalaal ayaa nixi doona. Sidoo kale Minik wuu yaabi doonaa. Markaas ayuu Jalaal dhihi doonaa Minigow maxaad iga fiirinaysaa dhinacaas kale u jeesa ayuu dhihi doonaa. Minik isaga naftarkiisa wuu yaabi doonaa waxyaabahan Jalaal laga sheegayo. Haddaba Serbi wuxuu dhihi doonaa cunug yar ayaad hooyadiisii kasoo afduubatay. Cunug yar ayaad walaalkiisii kasoo afduubatay isagoo yar. Intaad ku sheegtaa walaalkaygii kulay waad bi dilaysaa waan ogahay mantee. Intaadan idilin ka hor walaalkayga ii shagalka uu joogo dhihi doonaa Serbi. Walaalkii qofka uu yahay inaan ogaada ayaan doonayaa. Markaas kadib si raaxo leh waan u dhiman karaa. Laakiin Jalaal wuu diidi doonaa mindaas. Haddaba Serbi Jalaal ayuu qodqodi doonaa kana caraysiin doonaa. Haddaba ugu dambeyn ninkii Jalaal ahay biskooladiisii ayuu la soo bixi doonaa. Serbi ayuuna madaxa ka saarayaa. Wuxuu leeyahay Serbiyo way ku dhammaatay waan ku dilayaa. Serbina wuxuu leeyahay intaanan dhiman ka hor walaalkayga qofka uu yahay ii sheeg. Jalaalna wuxuu dhihi doonaa waxaan ku dili doonaa adigoo aadan ogaan walaalka qofka uu yahay. Dunidana waxaad ka tagaysaa adigoo Cumud qofka uu yahay aadan ogaanin. Laakiin Jalaal haddana uu isbar qabanaya oo wuxuu leeyahay aniga gacanteyda kuguma dilaayay. Qof kale inuu gacantiisa kugu dilo aad u danaynayo. Kadibna marti ayuu u yeeri doonaa. Wuxuu leeyahay martiyow soo adiga ma doonayn inaad ninkan gacantaada ku dishid oo biskoolada qabso ninka qaariji. Marti ayaa biskooladii madaxa ka saari doona Serbi wuxuuna isku dayayaa inuu dilo. Serbi ayaa si geesinimo leh marti uu eegayo. Wuxuu leeyahay martiyow idil kulliba daba dhilif ayaad u eed Jalaal nin xunna waa tahay. Sidoo kale tan gurigeena iyo maqaayadeena raashin ayaad ka cuni jirtay. Haddaba maxaad ugu jawaabi doontaa maama Faysoon markay ogaatay inaad gacantaada igu dishay? Marti qiira ayaa la gelin doonaa. Serbi dhinac walba ayuu marti kaga hadli doonaa. Laakiin marti wuxuu leeyahay iga aamusoon ku dilayaa. Marti biskooladii ayuu madaxa ka saaray Serbi. Jalaal uu ku qaylinaya marti maxaad sugaysaa ninka dil ayuu leeyahay. Xataa Daa'uud wuxuu leeyahay marti oo ninka dil adii kala biskoolada si aniga dilayay.
iyadoo sidaas la isugu dhagan yahay. Tali Yuusuf oo loo soo sheegay halka Serbi uu lagu hayo, ileen booliska ayuu la xiriiray, wuxuu dhahay ii baara meesha uu Serbi joogo. Markii loo sheegay, wiilkiisii Jamaal isagana ciidan kale ayuu soo wataa, wadada ayuu kusoo jiraa. Tali Yuusuf wiilkiisa ayuu la hadli doonaa, wuxuu leeyahay Serbi in la badbaadiyo waa muhiim. Serbi waa qof agteyda qaali ku ah. Wiilka ayaa yaabi doona, wuxuu dhihi doonaa aabbo muxuu Serbi dhankaada sidan qaali ugu yahay. Haddaba Jalaal Tali Yuusuf wuxuu dhihi doonaa mar kalaan kuu sheegayo arrin dheer hadeer waxaa muhiim ah inaan badbaadino. Kadibna Tali Yuusuf wuxuu niyadda ka dhihi doonaa Serbiyo is adkeyso, waan kuusoo dhowahay, aniga ku badbaadinay wiilkaygiiyo adkeyso. Sababtoo Tali Yuusuf aad iyo aad ayuu u jecel yahay Serbi. Ugu dambeyn Serbi intaan la dilin, Tali Yuusuf ayaa kasoo gaari doona, ciidankii kale iyo booliskana wadadii kusoo jiraan. Tali Yuusuf shanqar ayuu sameyn doonaa, xabad ayuu ridi doonaa markii goobtii gurigii qadiimiga ahaa uu soo galo. Kadibna waxaa la ogaan doonaa in meesha la yimid. Dilka Serbi dib ayaa loo dhigi doonaa, laakiin waa la suuxin doonaa oo kursi ayaa madax loogu dhufan doonaa. Ninkii manig ahay ayaa gadaal ka gaadi doona. Serbi markuu suuxo dhulka ku dhaco, ciidankii iyo Jalaal oo dhan way kala firdhismi doonaan oo waa la kala qaybsan maayaa, iyadoo la raadin doono halka xabadda laga soo riday iyo cidda timid. Haddaba Tali Yuusuf wuu soo galay, waa keligiis, ciidankii oo kalena wadadii kusoo jiraan. Tali Yuusuf marka horeba weerdiyii hore ayuu soo dili doonaa, kadibna Shefko ayuu heli doonaa. Shefko oo ah ciidankii ugu qaalisanaa, mid ka mid ah ciidankii ugu qaalisanaa Jalaal ayuu dili doonaa. Jalaal ayaa arki doona Shefko oo la dilay, kadibna minig ayuu diri doonaa. Daa'uud iyo Martina dhinacyada kale hore iyo gadaal ayay baarayaan. Haddaba minig isagana xabad ayaa ku dhici doonta oo Tali Yuusuf ayaa ku dhufan doona, minigna dhaawac ayuu noqon doonaa. Ugu dambeyn Daa'uud ayaa dhabarjabin ku sameyn doona Tali Yuusuf. Tali Yuusuf garabka ayaa xabad looga dhufanayaa, Daa'uud isagana garabkay xabad ooga dhacaysa oo way isxabadeynayaan Tali Yuusuf iyo Daa'uud. Ayadoo sidaas ay dhaawac u yihiin, Tali Yuusuf iyo Daa'uudna isxabadeynayaan, ayaa Jalaal dhabarjabin sameyn doonaa. Tali Yuusuf ayuu gadaal ka gaadi doonaa. Tali Yuusuf gadaashiisa ayaa la joogaa, mana u jeedo. Markaas ayuu dhihi doonaa Jalaal, Tali Yuusuf isoo eeg. Markuu Tali Yuusuf soo jeestana, xabado ayuu xabadka kaga dhufan doonaa ilaa 3 xabadood. Tali Yuusuf 3 xabadood ayaa ku dhacday. Markaa waa isdhiibay, inuu dhimanayo ayuu ogayahay. Biskooladii xitaa dhulka ayay kaga dhici doontaa. Haddaba dadkii oo dhan way soo bixi doonaan. Daa'uud oo dhaawaca, minig oo dhaawaca, sidoo kaletana Marti wuu imaan doonaa. Marti aad iyo aad ayuu u qiiraan doonaa markuu arko Tali Yuusuf inuu dhimanayo. Tali Yuusuf iyo Jalaal saaxiib ayay ahaan jireen, sidoo kaletana way isla soo shaqayn jireen. Muddo 20 sano ayuu Tali Yuusuf daba taagnaa Jalaal, mana uusan xirin. Muuqaal xusuus ayaana la tusaya iyagoo yaryar, isla goobtaas gurigaas Tali Yuusuf lagu dilay, isla meeshaas ay ku wada kulmi jireen labadooda si dhow maaleysi ah. Markaa waxaa macquul ah Jalaal inuu warbixinooyinka usoo gudbin jiray Tali Yuusuf, uu markii hore nin daacad ahay, laakiin tuug burcad ah uu gadaal ka noqday. Haddaba Tali Yuusuf gudaha ayuu soo gali doonaa isagoo dhaawacii ah. Serbi oo suuxsan ayuu u imaan doonaa. Waa muuqaal aad iyo aad u qiiro badan, qofkii daawadan uu ilmeyn doona. Tali Yuusuf ayaa macsalaameyn doona Serbi. Wuxuu leeyahay wiilkayga Serbi, waan ka xumahay inaan ka tago, aad iyo aad ayaan uga xumahay. Waxaan fili doonaa hawshii aan bilownay inaad dhamaystirtid iyo mishinkii aan gudagalnay. Waxaan ka xumahay inaan qabyo kaaga tago wiilkaygiiyo, haddii aad noolaatid ooba badbaadid oo cadowgan aad ka badbaadid, fadlan hawshii aan isku wada bilownay labadeennii dhamaystir. Guushana adiga ayaan kuu rajayn doonaa ayuu leeyahay. Tali Yuusuf sidaas ayuu ku geeriyoon doonaa. Tali Yuusuf markuu geeriyoodo, booliskiina ay soo dhow yihiin, Jalaal wuxuu dhihi doonaa Martiyow, biskooladan masax ee Tali Yuusuf gacantiisa u geli. Kadibna Serbi xariga ka furfur, biskoolad kale u dhiib. Serbi toogo. Markay booliska imaadaan ha u maleeyaan Serbi iyo Tali Yuusuf inay iyaga isdileen, labadoodiiba sidaas ku dhinteen. Kiiska sidaas ayuu ku dhammaan doonaa ayuu dhihi doonaa. Laakiin Marti sheekadaas ma yeelay. Marba hadduu Tali Yuusuf dhintay, Marti wuu isbedeli doonaa isagoo dhan. Xabadaha meel ibar ayuu u tiri doonaa isagoo iska dhigayay nin Serbi dilay. Haddaba Jalaal iyo Marti markay meesha kasoo tagaan, Serbi wuu soo naaxi doonaa, wax la dilayna ma leh, Marti ma uusan dilin. Serbi wuxuu arki doonaa Tali Yuusuf oo la dilay, aad iyo aad ayuu u qiiraan doonaa. Wuxuu dhihi doonaa aabba igama tegi kartid, aabahii oo kale ayaad ahayd, taliyahayga kaliya ma ahayn. Hawshii aan isla bilownay waa inaan isla dhamaystirnaa, macquul maahan. Isagoo sidaas u qiiroonay, booliskii ayuu ku dul iman doonaan. Booliska waxay u maleynayaan inuu Serbi dilay Tali Yuusuf. Markaas ayay dhihi doonaan hubka dhig. Haddaba Serbi biskoolad ayuu gacanta ku haystaa, booliska ayuuna ku fiiqayaa.
dhinacna Tali Yuusuf ayaa mid ah. Haddaba maxaa dhici doona xalqadda halkaas ayuu ku dhammaan doontaa. Waa xalqadda 85aad ayadoo booliska ay u maleynayaan inuu Serbi dilay Tali Yuusuf, Serbina uu ka qiiroonayay dilka la dilay Tali Yuusuf iyo booliskii uu ku dul imaadeen isagoo biskoolad gacanta ku haysto. Haddaba xalqadda halkaas ayuu ku dhamaatay. Xalqadda 86aad innaba caadi ma ahan. Waxaan sugnaaba waa markii is ogaadeen Serbi iyo Marti inay walaala yihiin, maadaama hadeer Tali Yuusuf la dilay waa bes.